waan miyir beelaanu mootada labada lugood leh oo faysbada ayaa ugu dhacday way u wareysteen waxay yiraahdeen yaa ku daaweeyay report ninka ku daaweeyay xagee ka yimid xagoo joogaa rajadii caafimaadka Ameerika ilaa Soomaaliya waqti kooban go'aan adag iyo nolol dhaxaysa geeri iyo badbaado waa sheekada rabtaay Cusmaan Sheekh Nuur Rooble Soomaali American si la yaab leh loogu badbaadiyay saalada qalinka isbitaalka Soomaali Suudaneys kana baaqday safar Mareykanka uu ugu tagi lahaa qalin loogu sameyn lahaa kadib markii uu kaga filnaaday isbitaalka taqasuga ee Soomaali Suudaneys Cusmaan wuxuu magaalada Muqdisho ku galay shil naxdin leh kaas oo ku dhashay dhaawac daran oo keenay inuu mir beelo oo uu galo koomo hal toddobaad waxaa dibba loola cararay goob caafimaad oo meesha ka dhawayd halkaas loo sheegay in waxba looga qaban karin maadaama xaaladiisu aad u darnayd ku dhawaad saacad ayuu ku jiray Cusmaan xaaladaasi hubantilaanta ee u dhaxaysay nolol iyo geeri isagoo aan helin gargaar caafimaad oo toos ah balse hal tallaabo oo kaliya ayaa badbaadisay nolosha Cusmaan taasoo ahayd doorasho la mahdiyay waa laga soo qaaday waxaa la keenay isbitaalkan Soomaali Sudan waxaa la keenay dhakhtarka Cabdicasiis ayaa la keenay دكتور عبد العزيز wuxuu sheegay in mataqaana xaaladdeedu adag tahay oo madaxa dhiig ku socdo loona baahan yahay in wax laga qabto laakiin qoyska Cusmaan ayaa isku dayay in Dr. Cabdi Casiis iyo kooxdiisa qallimada neerfaha xangulaha iyo maskaxda ay ka dhaadhiciyaan in Soomaaliya uusan Cusmaan ku gali karin qalin adag oo noocan ah maadaama uu yahay muwaadin Soomaali Mareykan loona baahan yahay in loo qaado dalka Mareykanka si uu halkaasi ugu helo gargaar caafimaad waxay ahayd dhab ahaan doodaadu kulul wuxuu u sheegay inaysan dhici karin safar 30 saacadood iyo ka badan inaan galo flightkaas dheer wuxuu yiri ninkaan ma geli karo saacado ayaa maskaxdiisa dhiig ku socda iyo dhaawiciisu saacado yar waay wax ka qabadkiisa wuxuu la talin fiican runtii siiyey oo in uu aysan dhici karin qof dhiig saa u baxaya inuu maartay safar dheer galo aduu alxaasil dadkii taladuu siiyey waa ka qaateen wuxuu ugu sameeyey dhakhtarku wuu xareeyay qaliina lagu sameeyey anigu miirkii sidaan u miir lahay waa maskaxda laga qalay operationkii lagu guuleystay adigu ma taqaanaa 7 beri ayaan ahaa kooma ku jiri aqbalaad dheer kadib qalinka Cusmaan wuxuu dhacay si guul leh waxaana fuliyay dhaqaatiir uu hogaaminayo Dr. Cabdi Casiis oo ah dhakhtarka qallimada neerfaha maskaxda iyo laf-dhabarta isbitaalka taqasuga ee Soomaali Suudaneys whenever we found oo soo gaarsiiyay bukaan sida Cusmaan oo kale oo ku soo dhaawacmay shil baabuur ama nooc kale oo shil isla marka uu soo gaaro qaybteena xaaladaha degdega waxaan si dhaqso leh ugu bilownaa daaweynta degdega si loo hubiyo badbaadadiisa loona xakameeyo dhaawacyada halista waxaan raacnaa nidaamka muhiimka ah ee ABCD ee nolosha si loo hubiyo in bukaanku helo hawo neefsi iyo wareegga dhiigga saxda having in mind that we are a neurosurgeon when you treat the brain time is brain so for the brain there are golden hours dhaawacyada maskaxda waa in si degdeg loo daweeyaa sababtoo ah daahitaanka daaweyntu waxa uu keeni karaa in qayb ka mid ah maskaxda dhaawac joogto ay gaaro marka dhaawac maskaxda dhacana saacadaha ugu horeeya waa kuwa ugu muhiimsan ee la badbaadin karo maskaxda bukaanka waana sababta loogu yeero saacadaha dahabiga haddii dhaawac maskaxda si degdeg loo daweeyo 4 ilaa 6 saacadood gudahood fursadda uu bukaanku ugu bogsado oo si buuxda uga soo kabsado aad bay u sarreysaa when you see the brain scan there was acute subdural hematoma a blood between bukaankeena Cusmaan waxaa la keenay isbitaalka 2 saac gudahood kadib shilka markii baaritaan aan sameynay CT scanka maskaxda waxa uu muujiyay hematura subdural baan oo dhiig ururay oo u dhaxeeya daloolka maskaxda iyo maskaxda lafteeda dhiigaasna wuxuu cadaadis xoog la saaray maskaxda waqtigu markaas wuxuu ahaa mid dahabi sidaa darteed waxaanu sameynay qalliin degdeg 3 saacadood gudahood markii la keenay waxaan kor u qaadnay lafta madaxa dhiigina waan ka soo saarnay goobtana waan nadiifinay kadibna bukaankii waxaan u wareejinay qaybta ICU oo ah qaybta daryeelka dheeraadka ama qaybta bukaanada aadka u liita clean the subdural space we transfer the patient to the ICU
muddo 6 ilaa 7 maalmood ayuu ku jiray daryeelka ICU waxaana ilaahay mahadiisa in xaaladiisu ay si tartiib u soo roonaatay. He stayed ICU for 6-7 days. Then he started to improve. MashaAllah, this time he is completely normal. maanta xaaladda caafimaad ee Cusmaan gebi ahaanba waa mid caadi ah. wuu hadli karaa sidaadoo kale, wuu socon karaa, wuu shaqeeyaa, xitaa si buuxda ayuu xakameeyaa kaadidiisa. cudurkaas waxaan u malaynayaa kulli Soomaali oo dhan waa qabtaa. cudurkii Soomaalidan dhinacayga ka qabay oo ahaa dibadda isku soo daaway. dibadda isku daaweydiyaan dhinacayga ka galo ninkii waa u mid waxaan yidhi warniga anigu waa baxaya. waxaan la socdaa inuu yidhi ninkan markii aan bixitaankii hore dadku ii soo waday inuu yidhi ninkan dibad wax badan kama jiraane hal la daayo aan dawada u dhammeeyo wixiise bishii ka bacdi alxaasil American u baxay. American tagay. America waxaa dhacday in subaxaan tagay emergency aan galay. emergency-dii waxaa dhacday inay maaragtay ay yiraahdeen baaris igu sameeyeen. adigu hameen iyo maalina baaris laygu sameynayay. riboodkii uu isiiyey dhakhtarkani Dr. Cabdicasiis riboodkii uu isiiyey oo runtii ahaa report international report ah. waayo nimankii dowladdii dhakhaatiirtii Mareykanka u tegey way qabsadeen, way arkeen CD-yo iyo paper waraaq intaba waa isiiyey. wuxuu sameeyey riboodkii way akhristeen, way fahmeen. waa adigu 24 saac ka waqti la eg ama ka badan wax yar markaan joog hameen iyo maalin amalan joogay ayaa yiraahdeen waxba ku sii mayno wax daawaa oon hadda ku siinayno ma jiraan. sababtu waxay yiraahdeen waxaan ka dhaafay horta way u wareysteen, way ii yimaadeen, way u wareysteen. waxay yiraahdeen yaa ku daaweeyey report ninka ku daaweeyey xagee ka yimid xaguu joogaa. Afrika lagu daaweeyay, Soomaaliya lagu daaweeyay. waxaa la yiri haddii Soomaaliya ma waxaan hadda oo dhan qaliinka iyo dawadan wixii dhammaan waan wataa, dawadii iyo riboodkii qaliinkii wixii dhan. ma intaas oo dhan ninka ku maray dhakhtar Soomaaliya ma Soomaaliya joogaa isbitaalka Soomaali Suudaan la yiraahdo. waayo waa adigu la qoslay ka bacdi waxaa la yiri marka waxay yiraahdeen hadda anagu wax daawaan ku siino ma hayno. wuxuu yiri waxaan iri anigu marka dawadii iska sugtay xogaa anoo dhibaataysan oo isla kiniini ba la qiimayso ninkaadii la qalay ayaa waxaan gaaray waxaan yeelay maaragtay ay yiraahdeen 4 bilood ka bacdi ayaa dawo la siiyey oo dawo 2 kiniini la siiyey. aduu 2 kiniini markii la siiyay kiniiniyaashii isticmaalay oo wax badan oo hadda ma taqaanaa kiniini una laga maahane iyo wax yar oo therapy ah physical therapy ana wax weersaas anagii baaba maskaxdayda gadaal waxay ugu soo noqotay inaan iska soo laabto. anigu meeshii hore ka soo bilaabay ayaa maartay waxay ila noqotay meel aad u qurux badan. And even he go to the US, because he's a US citizen. xitaa isagoo aaday dalka Mareykanka maadaama uu yahay muwaadin Mareykan ah. dhakhaatiirta qaliinka ee neerfaha dalkaasi Mareykanku waxay u sheegeen in bukaankan loo sameeyey wixii ugu fiicnaa ee suurtagalka ahaa oo aysan jirin wax ka wanaagsan oo ay ugu samayn lahaayeen. arrintaasi waxayna tusinaysaa adeegga caafimaad ee aan bixinno inuu yahay mid la jaan qaadaya habraacyada iyo heerarka caalamiga ah ee qaliinada dhaawacyada maskaxda adduunka. waxaan aad ugu faraxsannahay guushaasi weyn iyo sida bukaanadeennu ay had iyo jeer uga faa'iidaystaan daryeelka caafimaad ee heerka sare ee caalamiga ayaan bixinno. mahadsanideen. Protocol. Thank you so much. Cusmaan waxa uu bilaabay nolol cusub, caafimaad iyo soo kabasho wanaagsan.
waxaana safarkiisa caafimaad ku heliyay Dr. Cabdicasiis iyo kooxdiisa. maalintii shirku ugu dhacay iyo ilaa iyo intuu qalliin ku dhammaaday 7 beri aan waxaan ku jiray koomadii ka bacdi gacanta asaga ugu hayay intaa koomadii ka bacdi ayaan maalin walbana haddana uu ii imaanayay oo mataqaanaa ugu waday mataqaanaa baaristeedii waxayga aduu alxaasil waxaa dhacday marka bil ayuu dawo iyo wax kastoo mataqaanaa ay dhici karto in aan maaragtay aniga wax ii taraysa uu siinayay adugu bishii markaan joogay waan miirsaday xoogaa waxbaan kala ogaaday oo mataqaanaa nin wax ogaa noqday. Cusmaan wuxuu mar kale dib ugu soo laabtay Soomaaliya wuxuuna mar kale la kulmay dhakhtarkii qalay wuxuuna isbarbardhig ku samaynayaa aragtidiisii hore ay ahayd inuu Mareykanka daawo dheeraad u raadsado. wuxuuna inoo sharaxayaa dhanka kale sababtuu dib ugu soo laabtay dhakhtarkiisa uu jooga hadda. sababta aan ugu soo laabto ta dhakhtarka inaan u imaado waxaa iga keentay run ahaantii waxaa jira markaan dawooyinka soo qaadanay adigu maaragtay inaan 4 bilood iyo 5 bilood maaragtay xabad 2 xabo kiniiniya laqay hal anoo maqnaay ka bacdi lay mataqaanaa aan dawo ka dhigtay iyo ninka hal bil intuu igu qalay operation ugu sameeyey oo mataqaanaa intaa ay waday sidaan ugu caafimaadkaygii ku noqday iyo cudurkii Soomaalidu dhan wada hayayo ahaa dibadda la isku daaway. arrintaasaa horta ayaan u soo laabtay inaan ka hadlo maantana waxaan u jeclaa inaan ka hadlo waxaa weeye Soomaali waxay isku daweysaa dibadaha waxaana mataqaanaa uga roon oo uga fiican gudahooda inay isku daaweeyaan. waxaan aaminsanahay hadda inay dhakhaatiir intii laga rabo ay gudaha waddanka joogaan. waxaan ogahoo kaleeto hadda dhankan dhakhtarka ah dhakhaatiirtii Mareykanka joogtay si toosay waxay u yiraahdeen inay is arki doonaanna waaba u malaynayaaba si toosay waxay u yiraahdeen dhakhtarkani inaba ha ahaatee wax asaga ka bacdi aan kuu qabanayno oo ama qalliin ah ama mataqaanaa oo shaqo kale ah operation lagaa qabanaya ma jirto in uun mataqaanaa kiniyaashaas markay kaa dhammaadaan annaguna aan ku siina maani wax kaloo maaragtay meesha ka jiray waxaan ogaaday marka inay u baahan tahay in dadku fahmaan mataqaanaa in mataqaanaa ciidooda iyo dadkooda ay mataqaanaa la kulmaan oo dawo ka raadsadaan. waxaa dhibaatada ugu badan ku timaadaa dadka dibadaha ka raadsada wax baalka mataqaanaa caafimaadka dadka u aada dibadda dadkaasaa dhib la kulma walla operation ayadoon loogu talagelin qalliimo lagu tababaranayaa la geliyaa dawo lagu tababaranayaa la daweeyaa oo dawooyin testing ah lagu test garaynayo inay shaqaynayso in kala lagu sameeyaa. waa xaqiiqana runta hadalkiigaas waa xaqiiqa inay ku dhacdo Soomaalida wax badan arrintaas oo dibadaha kula dhacdo. dibadaan ku soo aragnay meelaha la isku soo daweeyo sida Turkiga iyo Russia baalka maxaa ahayn India iyo dadka tagaayo kaleeto ayadoo mataqaanaa shanjibaar lacag laga qaaday ayagu waxay marayaan intii dhakhtar Soomaali Suudaan jooga inta u sheego ay qaadan lahaayeen oo laga yaabo $2,000 iyo $3,000 in laga qaado ayuu 10 iyo ka badan iyo 20,000 ayuu galaa. marka intaasaan mataqaanaa anu ku darayaa intaas waxaan ku dhammaynayaa oon rabaa inaan runtii maanta u tahniyeeyo dhakhtarkii iqalay Dr. Cabdicasiis waxaan runtii ugu mahad celinayaa talooyinka iyo mataqaanaa qaabka aqooneed oo daawadii ugu daaweeyey qalliinkii mataqaanaa uu takhasus ku ahaa oo markaan anigu ka tegayey uu runtii ii sheegay inta ii soo bixiyey uu tusay waxyaabaha uu takhasus ku yahay sida mataqaanaa brain surgery-ga ah iyo trauma. maalintii intuu tusay uu yiri araabtaas anigu waxaan kuu qabanayay oon kugu daaweeyey
marka mataqaana waad fiicnaanaysaa isagoo igula talinaya maaragtay inaanan dhibaato iyo aniga dhan cabur maaragtay iscaburin ayuu mataqaana horta saa igu sheegay horta waa ku mahad celinaya waa mahadsan yahay iyo Soomaali Suudaan oo aan qarash badan iyo dhib badan iyo na imarsiin rumaantii la dhigi karo lacag la'aan ay ahayd ba la dhigi karaba runtii iyo mataqaanaa si dhaqan runtii caafimaad oo fiican la isku kayduway bixitaankayga horta intaasan waa mahad celinaya runtii waxaan leeyahay runtii mataqaanaa waa meel lagu soo hiran karo waxyaabaha aan aad ula yaabay waxaa ka mid ahayd oo dhakhaatiirta Mareykanka sheegeen waxaa ka mid ahayd qalabkii wax loogu baaray oo halkan hadda mataqaanaa lagu baaray isbitaalkan Soomaali Suudaan isbitaalkii aan tago Mareykanka wuu yaal intii oo kala taal wax ka badan oo waana isbitaalada ugu waaweyn oo mataqaanaa regional isbitaal la yiraahdo oo isbitaalada ugu waaweyn oo Minnesota ku yaal marka rumaantii markii isku qalabna leeyahay dhakhaatiirtiina ay dhakhaatiir wada yihiin waxaan isleeyahay anigu inay hadda wax weyn loo gudbanayo marka waa u mahad celinayaa rumaantii Soomaali Suudaan waa mataqaanaa waxaan leeyahay runtii waa meel lagu hiran karo oo la dhihi karo hal lagu daawato dhakhtar Cabdicaziizna waxaan leeyahay rumaantii waa dhakhtar international ma ahan dhakhtar waxaan leeyahay iska meel local ma ahane waa dhakhtar international sababtu waxa waaye haddii qofku intii dad la hadlo internationalkii afgarteen oo ay fahmeen oo wuxuu u soo sameeyay wax international ka fahmeen noqdeen hadda waa international la sheeba waa intaas marka waa u mahad celinayaa aad iyo aadan ku mahad celinaya waa mahadsantiin sheekada Cusmaan waa mid dhab ahaan muujinaysa sida Soomaaliya ay maanta uga dhacayaan arrimo caafimaad oo heer caalami ah waa caddayn kale oo na tusinaysa in daryeel caafimaad oo sax ah iyo go'aan degdeg ah ay si dhaba u badbaadin karaan nolol isbitaalka taqasusiga ah ee Soomaali Suudaanes iyo Dr. Cabdicaziiz iyo kooxdiisa waxay noqdeen astaan muujinaysa horumarka iyo kartida dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwaas oo maanta ka mid ah kuwa ugu firfircoon ee ka shaqeeya badbaadinta nolosha iyo soo celinta caafimaadka bulshada Soomaaliyeed runtii Soomaaliya ma aha meel dib uga hartay adduunka kale waa meel ay ka dhacayaan daqiiqad walba waxyaabo cajiib oo la xiriira caafimaadka hadday noqon lahayd daaweyn daryeel iyo xirfada caafimaad kuwaas oo mar walba muujinaya in tayada iyo rajada halkan ka jirta Soomaali Suudaanes Hospital uu ku hantay inuu noqdo hormuudka isbitaalada Soomaaliya